guud ahaan shacabka Soomaaliland waa salaamaya marka hore gaar ahaan taageerayaasha xisbiga sida loo wada socono baryahanba waxa soo dhacay oo dhagaha bulshada Soomaaliland ku soo dhacay hadallo kala duwan oo ay la fariireen guud ahaan bulshada Soomaaliland oo ka yimaanayay xubnaha looxtuurka ah ee ka tirsan xukuumadda xisbiga kulmiye eraya ay isticmaalayeen oo qadaf ku ah guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland noocyada kala duwan hadii ay jalan tahay hadii ay qaar wasiirada tahay iyo shalay u dambeysay qaar tahay maareeyaal iyo ragaan shaqadii loo xil saaray ilaa hadda iyagoo aan gudanin waxa loo diray in ku mashquulsan waxa si kooban uga hadli doonaa runtii amaan saddexda ka hor doonaa kelmado shalay ka soo yeeray nin message loo soo dhibay ama fariin siday gobolka Awdal oo gobolka Awdal runtii u gudbinayo ninkaas oo ah gudoomiyaha barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Xirif ninka la yiraahdo ma aha runtii markii uu horeysay fariinta la soo dhibay horena waa loogu soo dhibay gobolka Awdal loogu soo dhibay Cabdiraxmaan waxa uu sheegay lahaa runtii in mas'uuliyadda qaranka uu dirtay inuu dayacay waxa loo dirtay inuu daryeelo hooyada iyo dhalaanka barakacayaasha ah ee ku barakacay guud ahaan Soomaaliland gudaheeda kuwaas oo dayacay diif badan runtii ay ka muuqato taas oo taariikheed waa inuu bustayaal iyo bac gaarsiiyo waxa kale oo dayacay oo hore la leeyahay sheego boqor burbudo inoo sheegay inuu dayacay maatidii iyo wadka u dhalay runtii oo ku dayacan magaalada Burco Cabdikariin waxaan oran lahayn gobolka Awdal kaagama baahna runtii inaad ka hadasho saamiga iyo waxay ka hadlayaan inaad adiga marti kaagama runtii oo kaamana sugayaan kuma weydiisanayaan inaad ka hadasho waxay tabayaan gobolka Awdal laakiin waxa mas'uuliyad ka saaranta shaqada uu madaxweynuhu ku dirtay ee qarankan aad mas'uulka uga tahay inaad ummadda dhibaataysan aad u baadi doonto bustayaal iyo boco iyo waxay ku baahi beelaan runtii iyo qodobka labaad oo ayna dayacdo carruurtaada burca ku dayacan waxa soo noqonaysa runtii in aad loogu celcelinay kelmadan ah saami qaybsiga gobolka Awdal Cabdikariin wuxuu garan lahayn gobolka Awdal waxa uu doonayo horta marka hore waxa uu haystaa inuu 13 xubnood oo golaha baarlamaanka ay raadinayaan waa qalday fikirkaas runtii fikir qaldan weeye gobolka Awdal waxa uu raadinayaa wada jirka iyo wax wada lahaanshaha guud ahaan Soomaaliland kaligoodna raadin maayaan waxa uu raadinayaan dhammaan beelaha Soomaaliland wada degan in si cadaalad iyo sinaan u helaan xukuumadda yaani golaha wasiirada agaasimayaasha fulin yaani iyo shaqaalaha dawladda dhamaantooda waxa kaligood doonayaan maaha kuma qancayaan oo mana aqbalayaan runtii saddex wasiir iyo dhowr agaasimayn gobolka Awdal ay waa lagu qanciyay xaqiiqatan umara qalmo runtii gobolka Awdal kuma qanacsana waxaan u sheegnaa gudoomiyaha iyo madaxweynaha fariinta soo farayba waxaan aragnaa horta guud ahaan anagu inuu arrinkaasi ahaa arrin fariin oo loogu soo dhibay gobolka Awdal oo madaxweynuhu taariikheed waa inuu kaga hadlo maalintii dhaweeyay oo tagay Booraba jaamacadda ka hadlayay iyadoo rag badan oo gobolkaasi dirtay si ay arrinkaasi ay buuxiyaan ragii markii ay gobolkii Awdal ay arkeen in ay arrinkaasi dhaqaaq waayay oo ay gobolkii Awdal ay arkeen in dhageysanaynin arkaan aan maanta diyaar u ahayn in madaxweynuhu arrinka ka gaabsaday tii baan u aragnay maanta inuu jawaabteedii Cabdikariin Xirif bixinayo oo gobolka Awdal message ahaan loogu sii dirayo baahidan ay doonayaan gobolka Awdal ee Cabdikariin ka hadlayo waxa ay hortaala madaxweynaha qaranka isagana looga baahan inuu arrinka ka hadlo isagana gobolka Awdal ka sugayaan iyo guud ahaanba mas'uuliyadda qaranka ugu sarreeya kale haddii guurti tahay iyo maxkamadda sare tahayba waxaan markaa leeyahay message ku ka gudan yahay Cabdikariin adigana shaqadaada waxa kugu boorin lahaa shaqadaada inaad ka ilaaliso dayacay diifta ka muuqata oo shaqadaada runtii ku noqoto erayga kale oo oranaya waxa weeye madaxweynaha Soomaaliland iyo doorashada ay ku celcelinayaan xubnaha ka tirsan xukuumaddiisu in xisbiyada qaranka ay hortaale marka hore kalana shaqeeyaan iyaga doorashada horta waxa xaq u leh inuu qabto oo mas'uuliyad ka saarto madaxweynaha ugu horeyn marka hore waxa lagu eedeynayay xisbiyada qaranka in ay iyagu doorashada caqabad ku yihiin hortaagan yihiin qodobkaasna waxa shantii qodob ay soo gudbiyeen komishanku hal qodob ka mid ah lixdii qodob ay soo gudbiyeen komishanku hal qodob ka mid ah shantii kale isaga hor yaalaan halkii qodobna xisbiyadu way ka heshiiyeen xubintiina waa la magacaabaya hawshaasina way dhamaatay wixii maanta ka dambeeyay madaxweynaha laga sugayaa
haddii uu leeyahay ma tahli karayo ummadda u soo gudbito qabashada doorashada ma qaban karayo uu leeyahay ma tahli karayno ummaddu soo gudbi doona waxaase ka horeysta doorashada qabitaan in la qabto in uu madaxweynuhu saamiga bulshada ka qanciyo isla markaana ay tahay qodobka quraacay doorasho qabsoomaysa in wada jirka Soomaaliland iyo wax wada lahaanshaha marka qodobka laga hadlo in doorashada ay noo qabsoomi doonto haddii se la yiraahdo jujuub iyo isindatiris la iska indhatirayo beelaha hadlaya ayaa doorasho lagu qabanaya ma dhacayso taasi ma dhacayso waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu arkaasi uu ka tafaxayto haddii la yiraahdo oo xil gaaran iska saaro sidaas laashligeed waxaan doonaynaa xubnaha ka tirsan xukuumadda ee ka soo jeeda gobolka Awdal iyaguna inay ilaaliyaan yani masiirka iyo rabitaanka dadka ay matalayaan gobolka Awdal ka soo jeeda inaanay maalinba intuu fariin ugu dhiibo inaanay madaxweynuhu fariin ugu dhiibo aanay kala dhaxay ka soo noqon kala iyaga la gaadhi waxa la bulshada gobolka Awdal aad bay maanta runtii u kacsan tahay halkii uu sariisana way maraysaa kaliya ta waxa qarcinaya in sharciga la isugu yimaado laga wada hadlo yani qaabkii loo qaybsan lahaa saamigaasi iyadoo waxna madaxweynaha ku xidhan yihiin oo ay tahay wixii isagoo magacaabayo waxna ay tahay waxa sharciga u baahan waxa sharciga u baahan isla soo gaarabo balde iyadoo waa sharciyada bal isla galiyay waxa qalinkiisa ku xidhan ee saamiga isaga qalinkiisa ku xidhan inuu ummadda ugu xaq soo raabay runtii taana bay dhicin waxa la madaxweyne waxa ummaddu ka sugaysaa waxa qalinka ku xidhan ee kaaba sugayso oo qayb ka tahay qaybta sharciyada laakiin waxa ugu horeeya inaad u cadaalad samayso guud ahaan Soomaaliland xubnaha golaha fulinta ku jira magacaabiso yani qoleynka maareeyaasha agaasimayaasha yani waxa xukuumadda ka tirsan aad ugu cadaalad samayso aad